maxaa marka keenayo ilmihii in ay maakino carab kaja aysan ahaanin because cunugii waxay ula hadlayaan si normal ah anaga ilmaheena maxaa ka dhigay ilma cabsoo hayo maanta iskuul hadii la geeyo wax walba lagu soo sameeyo cunuga ma ku sheegi karaayo sababaha keenayana anaa sheegayo cunuga maanta banaanka haduu ku soo dheelo la soo dilo mid dhif ah maahan oo lookaan ah maahan ma sheegayo wax walba ilmaha Soomaaliyeed lagu soo sameeyo ma sheegayo reasonka u sheegi waayena waa waxyaaba anaga aan ku sameeyno ilmaheena ilmuhu marka way hadana way cabsoonayaan maxaa ka keenay inay cabsoodaan anaa sheegayo ilmaheena maxaa ka keenay maxaa ku kalifay in markay yar yihiin hadalka ay sakarin oo ilmaha kale hadalka u karaan because ilmaha kale si normal baa loola sheekaystay ilmaheenana markii la hadlaye meeshii la dhahaye haabo baba adada nana dadada dada ad kula hadashay cunugii haduu soo kaco muxuu dhahay dada carabki ascin ad stressay exactly adiga saa u hadlaysay buu maskaxdiisii koobiyay hadhoodii markuu hadli maago markuu soo dada uu leeyahay hadalkii si rasmi ma u dhigi karo because hooyadii iyo aabihii tarbiyada ka soo xumeeyay numberka koobaad please ilmahaaga marka la hadlaysid sidaan kula hadla ula hadal ilmihii way dhasheen assalaamu calaykum hooyo macaan cunugeygii quruxda badnaayo waasha ilmaha maskaxdoodu way yar yihiin waxa ma kala ogaaleed laakiin way record gareynayaan more bil ay helaan more kelmadii recordkii ka daba noqonay inay yiraahdaan ilma yaro markino oo umul I love you dhahayo because wala yiraahdaa oo ku jecelahay xabiibi qalbigaygiyo indhahayga nuurkiisiyo cunugii waxaad ku beertay raxmad asigana britol wuxuu ku leeyahay indhahaygiyay may ruuxi qalbadaydiyay noloshaydiyay uu ku leeyahay laakiin cunug markaad aad la hadlaysay عرب كجأت كل هذا يسي ماما ماشي عدينا حديقة رسادات دا أبوه ما بلا هلا يابا وبس كلوه ما حنا الله هلا قالوا لي هاي مركز هادو دي عنق مركو سوين هادو يا أبي ويبك العب صونا يامبو ما نسفهم يامبو